بسم الله الحمد لله إلهام هذا سكال والعليال قيبتي لبعض قلينا عشر كاني لبعض scientific method هب علميات وحلو يقانا والعليال وحيابا اسكو وافقاي وكمستر يقانا اسكو وافقين يالو يقانا مرك انت عنا نقلين هرطو سؤالها كوان واكان وبوك وقرأ اكسساس كاينا كسو شقي كرتدان جعلهاي ان شاء الله وحي اتكادنا قيبت هوسي كومنتيغا يوسو قر ان شاء الله su-aalaha way fudud yihiin oo waayo cashirkii hadda aan sharaxayni kaliya related leeyihiin marka qofku wuu fahmi karaa hadduu cashirka u dhageysto waayahay wuxuu leeyahay by the end dhamaadka of the lesson cashirka the learner bartaha should be able waa inuu awood u yeelan karaa describe qeexidda muxuu qeexayaa describe qeexidda and apply iyo soo kale dhaqangelinta scientific method ee hab cilmiyeedka the daily life of activities shaqooyinka joogtada ah ee maalin walba inuu ku dhaqangeli karaa waayo bal aan fiirinaba every day maalin walba we ask waxaan isweydiinaa questions su'aalo ana siig waan raadinaa answers jawaabahooda to organize si aan u habeeno ana make waa maxay kadibna aan u sameyno sense dareen aan u sameyno of the world waa maxay around us waxaan ugu akareereysan oo dunidan ah si aan dareen ugu sameyno u habeeno ayaan maalin su'aalahaas u raadino leeyahay waaye everyday maalin we ask waxaan isweydiinaa questions su'aalo ana siig waan raadinaa answers jawaabahooda to organize aan u habeeno ana sense waa maxay ana make aan ka dhigno sense dareenka aan ka dhigno dareenkan aan ka dhigno of the world around us si aan dareemaheenna dunidan u akareereysan aan u gelino waxyaabahaas aan u ogaano waaye waxyaabaha isweydiin waxaa ka mid ah what are the jolks maxay jeestooyinka made up of ay ka samaysan yihiin weer halkeeba does the energy tamarta of the body ee jirka come from ay ka timaadaa waaye sababteeba plastics bacyaha do not rust aysan u miririn waaye waxyaabahaas oo dhan inuu qofka isweydiiya ayaa marka ka dhalanaya to answer si aan ugu jawaabno these questions su'aalahan anamo in badan oo kamid ah use waxaan isticmaalaynaa systematic process nidaam macnaha soconayo oo jira ayaan isticmaalaynaa kali loo yaqaan scientific method maxaa raada hab ereyga scientific waa cilmi method waa hab maxaa raada marka define scientific method is a set of procedures waa nidaam weeyaan set waa maxay waa koox of procedures ee nidaam ah taasoo scientists saynisyahannadu follow ay raacaan in order si to gain waa maxay u helaan knowledge aqoon about ku saabsan the world dunida tan ku saabsan kaas loo yaqaan oo leeyahay scientific method waxa loo yaqaanaa is a set of procedure waa koox nidaam ah taasoo scientists saynisyahannadu follow ay raacaan way u raacayaan in order si to gain ay u helaan knowledge aqoon about ku saabsan the world dunidan tan ah the procedure marka intaas loo yaqaan qeex scientific method hadii loo dhaah the procedure nidaamka scientific method ee la raacayo consist of wuxuu ka make an observation in la sameeyo observation maxaa u kurkalid maxaa si dhow in shayga loo eego marka si dhow eegidaas waa maxay in la fiiriyo shaygan naked eyes way qaweys isha caadi way qaweys maxaa lagu fiirinayaa shay gudaha hoose oo macnaha sababay in lagu fiiriyo microscope in lagu fiiriyo observation meaning waxa loo jeedaa looking at microscope in lagu fiiriyo weeyaan waa ku soo koobaa that an act of waa mid lagu dhaqan gelinayo careful si buuxda ayaan lagu taxadar leh ayaan lagu dhaqan gelinayaa oo marka la fiirinayo si buuxda taxadar loo fiiriyo laabka ana systematic examining waana tijaabo macnaha soconaysa weeyaan of scientific problem taasoo keentay in la sameeyo waxaa keenay dhibaato cilmiyeed shaygan in la fiiriyo microscope lagu fiiriyo waxaa sabab u noqotay dhibaato cilmiyeed sabab u noqotay idis iyada made waxay ka noqon kartaa qualitatively quality waa maxay mid tayo leh ana soo kale quantitative waa maxay ana quantitative waxay kale noqon kartaa u leeyahay mid tira ah quantity waa mid tira ah labadaas mid ay noqon kartaa wax tayo leh iyo wax tiro leh ay noqon kartaa wax la raadinayo u leeyahay by using idoo la isticmaalayo the five senses waa shanta dareemo and equipment ee qalabka in iyadoo la isticmaalayo ayaana sabab u leeyahay waaye garanay taas marka loo yaqaan marka waa kana observation al sameeyna hypothesis experiment al sameeyna law al sameeyna sawirkaasna waad fahmaysaa markaad ku aan fahanto insha Allah waa mid labaad waa maxay formulating science waa maxay in la qaacideeyo hypothesis in aragti waa maxay
رأي أهان إن وحلا لوجو قياس وحيهين لوجو شرحه hypothesis marka waxa aragtay in qofku uu ka qabo mara awaal ka saamaxay qofku inuu qiyaas waxaan waxa ay yihiin making in la sameeyo weeyaan an educated guess qiyaas macnaha aqoon in la sameeyo weeyaan haye taasoo based on lagu saleynayo a few wax yar oo noun waa maxay a few noun wax yar oo la ogsoon yahay facts xaqiiqo yar oo la ogsoon yahay in xaqiiqadaasi lagu dabaqo witaasoo has not yet been proved and wili hadana la cadeyno laabkii wixii uu san cadeyno hadana lagu qiyaasa saana ila noqon kartaa tan saana noqon kartaa marka waa ina qofka uu saadaaliya wax wixii noqonaan marka waxa waa hypothesis waxa waa qiyaas waxa waa shaygan qofku wuxuu ogaa marka waxay dhahaan mara awaal way dhahaan mara awaal macnaha waxa qofku wuxuu u maleeyo ay dhahaan waa ka marka afeef waxa hadal iska hormariyo bulshada inay ogaato waa hypothesis loo yaqaan macniin marka ka sii hadlayna waaya marka taas loo yaqaan oo leeyahay marka wuxuu leeyahay iyada kan bi waxay noqon kartaa test mid la tijaabiyo through iyadoo loo maray experiment tijaabo marka waxay noqon kartaa midaasi mid la tijaabiyo iyadoo loo marayo test waa maxamed la fiiriyo tijaabo lagu sameeyo experiment iyadoo dhaqan gelin lagu sameeynayo dhaqan gelin iyadoo lagu sameeynayo waayaan ka socono midda kale designing experiment waa maxay in lagu fiiriyo design waa maxay in lagu talagalo experiment tijaabo waaye procedure nidaamka daataas oo testis waa maxay lagu tijaabinayo hypothesis waa maxay aragtidii uu qofku uu qabay lagu tijaabinayo by experiment tijaabo ahaan dhaqan gelin iyadoo lagu sameeynayo ayaa loo yaqaanaa waxaan marka maya waa boodimiya by the collecting iyadoo la soo aruurinayo by the process nidaam iyadoo lagu sameeynayo of collecting la soo aruurinayo information akhbaar ayaa la soo aruurinaya under the collect kadibna under controlled conditions waxyaabahaas la soo aruuriyay waxa lagu maamulayaa shuruudo experiment inay maraan proof marka experiment waxay noqon kartaa mid cad oo amasana disproof hypothesis experiment laba mid ka soo bixaysa hypothesis inay cadeyso inay cadeey weys taas loo yaqaan marka experiment hypothesis qofku uu qabay inay cadeyso inay cadeey weys waa ka marka design waa maxay marka design waa maxay in lagu talagal weeyaan oo arintaas lagu talagal weeyaan experiment tijaabo procedure nidaamka daataas oo test lagu tijaabinayo hypothesis waa maxay aragtida lagu tijaabinayo by the process oo la marayo of collect lagu soo aruuriyo information akhbaar under controlled iyadoo lagu maamulayo conditions ama shuruudo lagu maamulayo experiment shuruudahaas tijaabadii ayaa lagu maamulayaa tijaabada marka waxay noqon kartaa mid cadeyso proof hypothesis it is proof hypothesis noqon kartaa marka qaybta afraadna muuqaalka ayaa iga go'aayo insha Allah 10 saddexaadan ka dhigaynaa toos aan isku xiri doonaa wabillahi tawfiiq